السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة ديال iyo dhageystayaal gobol dunida ka joogtaan magacaygu waa Maxamed Faarash waxaan fursad dahabi aan la yeelanay gobolka Garissa County mudane Cali Bunow Qorone in aan xog yar ka helo oo ka wareysano xaaladaha guud in dawladdu ka socotay maxkamad ku taala magaalada Nairobi iyo qaylidii inta badan ka jirtay magaalada Nairobi Governor Cali Bunow Qorone markuu kuwad ku soo dhawo waana kaaga magaceleynaa wareysigan gaarkeena siinayso dadku waxa uga warantaa maxay ahayd arrintii dhacday xariga keentay dacwada keentay dad fara badan ay fasiraado kala duwan ay ka bixinayaan maxamed horta aad baad u mahadsantiin inaad i wareysatiin oo dadweynaha aan ogeysiino wixii dhacay wixii jiro runtii warun waa li dacwey lamaanta wax cad oo waxan baa ligu dacwey aan ku dhihi karo ma jirto dacwada ligu furayna waxaa weeyo mid hadda wax baad xaday lima dhihin wax faa'iido baa ku soo gaartay oo adiga ku soo gashay oo wax la soo dhacay lima dhihin waxaa la yiri dad adiga ku shaqeeyo yaa khalad sameeyeen khaladkay sameeyeen waxay ahayd lacag accountan ku jirtay oo account dawlad ay ka bixiyeen oo account kale dawlad ay leedahay geliyeen taana hadii ma furi karto dacwo oo maartay yani inta leek ma furi karto midda labaadna waxaa la yiri mashruuciyo loogu talagalay in la meel mariyo iyaan la meel marinin taana waa been oo mashruuciyihii lacagtan loogu talagalay saddex weeye laba waa la bogay 100% waa la bogay waa wada la dhisay meel biyaha nayto dadka ay maraan iyo meel dadka ay ku socdaan oo ay kan la dhisay lacagtooda la bixiyay midda saddexaad way suuqa qorxay asagana nin walba arka oo 80% ama 90 waa la bogay lacagtiisana waa la bixiyay marka horto aad baan ugu wareernay waxa jiro iyo wuxuu ku umaaday xogaa tuhun waxa iska jiray annaka iyo dawladda dhexe waxa isku hortaagnaa oo ahaa dhaqaalihii la qaybsanayay ee wadanka ee dawladaha 48 ka mid ah nationalka iyo 47 loo qaybinay waxaana wax Kenya oo dhan ka wada dhaxay bay ahayd aan u soo noqono midaas tasiilaadkan ama shaqadan ay qabteen saraakiishaada adigu markay qabanayeen ay lacagta ka soo bixinayeen bangiga adduunka accountigiisi ay wad caafimaadka iyo biyo kala geenayeen adigu xukuma ka haysay oo tashmi kala yeesheen mise wax dhacay maya ana horto wax lacag la shaqo kuma lihi sharciga countiga sharciga wadanka governor xagga siyaasiga umbo dawladda madax oga yahay iyo xagga guud laakiin wax shaqal lacag waxay ku umaatabo ma shaqa kuma leh nimankan iguma haystaan wax baad saxiixday iyo wax baad ogolaatay iyo wax baa lagu weydiiyay iyo wax baa lagala tashaday iguma haystaan nimanka way u madax bannaan yihiin inay dawladdaas wixii loogu talagalay in la meel mariyo way u madax bannaan yihiin waxay sameeyaan waxaa jira sanad walba auditor general wax la dhaho oo wixii xisaabaha baaro oo wixii khalad dhacay soo saaro wixii la haleeyay soo saaro wixii in wax laga qabto u baahan soo saaraan marka ani meel aan ka soo galay iyo meel aan waxa shaqo ku leeyahay ma jirto midaan lagu ma haysto hadda ma dacwadeeda ma jirto waa tahay dacwada waxa ku jirto kala leadership hoggaan marka misleedahay adiga countigii waad hogaamin laadahay maxay tahay marka way xisaab baa laga hadlayay leadership waxa soo galay meesha horta midaas waa mid la yaab kale oo hoggaanka si horta lagu maxay ahayd tijaabiyo lagu fasiro oo hoggaankaada wuxuu xoog u leeyahay ma waxay ku xiran tahay qaylada aad samayso inta ruuxi aad qaraacdo inta ruuxi shaqaad ka bixiso inta ruuxi aad canaanato waqtiga aad soo toosto waqtiga aad hurdo waqtiga cunto si loo tijaabiyo ama sana loo ogaado hoggaankaada wax uu yahay horta meel lagu qoray ma jirto in hadda tijaabin karo oo ogaan karo hoggaankaada intuu dhan yahay
ma jirto. midda kalena hataa nimankan la leeyahay waad hogaamin weyse dambiga hadda lagu haystay yaaban asagaba caddayn. waana khalad waa la geli karaa, lacag dowladda way dhumi kartaa, lacag dowladda waa la musuqmaasuqin karaa oo meel walba dhici kartaa. laakiin hadda nimankan ay shaqeeyaan saraakiisha wax hadda lagu haysto oo cad oo la leeyahay kanay samaynin ama kanay qaateen ama kanay ka faa'iideen ayakana ma jirto. marka waxiiba wuxuu iskaga egyahay wax uun wax kaloo ku xiran wuxuu yahayna weli aanan garanin. waxaad sheegtay inuu jiray hardan hoose oo ahaa in dhaqaalo gobolka laga goosto oo aad is leedahay adiga waxa lagu dulmay culeyska lagu saaray ee dagaalka lagu qaado inay tahay codkii shacabka gobolka ee Soomaalida ama NFD-ooduba aad noqotay oo sheegtay inaad ka dagaalamaysay lacaga la goynayo oo xusul budata habeenkii xabsiga aad ku hoyatay in madaxweynuhuna uu shir sanad kala lahaa ayadaba dadweynaha u bidhaan. horta ma hadda waxaa weeye arrintii doodii waxay ahayd iyo wixii lasoo maraybo 3 bilood la soo dhaafay si fiican bay hadda ku dhamaatay. waxayna ku dhamaatay sidii aan rabnay madaxweynaha u mahadcelinayna. dooda inta ka horo annaga gobol NFD haddaan nahnay waxaa lagu tali jiray ama lagu talinayay 7 bilyan oo shilin inay sanad walba naga dhunto. gaaris oo kale 2 bilyan inay naga dhunto yaa lagu talinayay. 2 bilyan hadday naga dhunto waxay nagu qasbi lahayd 1500 oo ruux oo maanta noo shaqeynaan ka bixino maadaama lacagtoodii la goostay. haddii meel 1500 oo ruux shaqo lagaga bixini annaka kama horgudi karno. wixii awood aan lahayn, wixii dood aan doodi karnay, wixii aan talageli karnay waa galnay. marka ugu dambana waxaan ogeyn uun haddii si un bay ku dhammaan doontaa. laakiin annaka waxay nala noqotay inaan qaylino, inaan ka hortagno, inaan runta sheegno. oo waxaan la leeyahay dhulkeena dad ma joogaano horta waa been. dadkeena waxaa way badan yihiin laakiin bahalkan irinkaarka la dhaho ma qabaano. sidaa daraaddeed dadkan kuuraha ridaan ma badno. tasiilaadkiina looma sameynin oo meelihii lagu ogaan lahaa waxaa jirtay khudbad aad jeediso ahayd in isbitaaladii iyo iskuuladii taa waan kusoo wadaa dadka lagu ogaan lahaa dhaqaalaha kalena waxaa lagu qaybsanaya la yidhi lacagga isbitaalka haddii loo qaado waxaa la yidhi waxaa lagu qaybsanaya dadka isbitaalka tageen. haddii meesha isbitaal uuba jirin oo aan laga dhisin wax tegiba ma bale manager lama tegeyso. waxay ahayd intii isbitaal tegaysay in la dhaho ayaga meelay tagaan bay haystaan oo intaan waxba aan qabin in meel loo dhis ay tagaan. laakiin waxaa laga soo qaatay inta ruux ee isbitaalka tagtay oo inta isbitaalka inta gaaris joogtay kaliya tusaale ahaan ama inta maalin joogtay ama intaas uun weeyaa markaas khalad bay ahayd. laakiin haddii taas hataa ma hubno inay sababta ay tahay waa iska tuhun ilaa waxay ahaydbo ayadana si fiican bay ku dhamaatay oo maanta lacagna lagama goynayo sanadka dambo iyo lacag hadda naga goy ma jirto waa ku guulaysanay. isla arrimaha tuhunka mis leedahay in siyaasiyiin doonayay in kursigaaga ay kaa ceersadaan ay dabada kaa riixayaan oo doonayaan in aad ay ku qadanqadiyaan. oo taas horta shaki ma leh in waxaa jirta habeen walba markay seexanayaan intay ilaahay janno ka baryi lahayn inay ilaahay ka baryaan inuu cali uun dhib la kulmo oo xafiiska uu ka baxo oo ayaga ay qaataan iyo ruux kale ay leeyihiinbo. marka taa shaki uma jirto way jiraan. laakiin haddii gabanaaga sida shaqada uu kaga baxo ama lagaga bixin karo waa wax cad oo qoran oo petition oo in la geeyo. midda labaadna waxaa weeye un waqtigii la gaaro doorashada inuu ruux isa soo sharaxo waqtigaasna wuuba soo dhowyahay. marka haddii intaa ma jiraan ma dhihi karno aad bay u badan yihiin in aan waxba nala rabin. laakiin kuwaana shaqadoon bay wataan annagana ilaahay inuu kuwa naga badbaadiyo inuu janno la siiyana annagana habeen walba la fadhina. waa tahay dadka afka ingiriiska aan garanaynin maxkamadda judgmentiga aan akhrin waxay leeyihiin cali gurigiisa lagu ekeeyey xafiis ma tegi karo gaarisa ma imaan karo ma shaqo tegi karo. haddii aad u fasirto dadkii aad walaaca ugu faraha badan weliba taageerayaashaada waxay ka walaacsan yihin waxaa weeye adeegii caliguna siin jiray hadda nama siin doono noo fasir. horta governor haddii lagu doortay oo maxkamad intii lagu geeyey aan jagadii governor laga qaadin horta wax shaqadaadii kaa hor istaagi karo ama wax ma jirto.
midda dhacday waxaa weeye nimankan sharci yar oo aada u yar oo ay isticmaalaan inay ruuxa markii la dacweeyo xafiiskii uu tegin sifo uu ma aragtay dadka hadhow shaahidka noqon lahaa iyo wixii shaahidnimo xafiis looga doon lahaa u hor istaagin ay isticmaalayaan ilaa hadda midayda oo kale wax hadda shaahid leh ama sano oo ruux waa wax ayaka istuseen aniga inaan hogaankii kasoo bixi waayo taana wax shaahid leh oo shaahid ruux noqon karo maba jirto waxaan igu kooban uun oo dee say u tijaabiyeen ayagun baa garani waxa shaahid ay keenayaan marka taasna waa khalad laakiin maanta shaqadeydii wax iga hor istaagi karo ma leh mideeda kalena hadda aniga xafiiskay gaaris hadda 5 bilood ma tegin waxaan u tegay horta waxaan meel marti aan ku ahay oo yaan xafiiskay uu ka dhisan meeshana dadkii lahaa waxa aad u dhibaataystaan dadka badan aan iimaanay adigu hogaamiye shacabka soo doorteen baa tahay meeshana administration maalba askale security bay qabaan 300 ruux ay maani waxay ma garanayno way argagaxaan dadka markay imaadaan aan joogo marka badi gurigeygu ma ka shaqeyn jiray hadda Nairobi xafiis baan ku qabaa asagana 6 bilood ma tegin halkan baan iska joogaa aan askale marka shaqadeedii si horumay ku soconi wax hadda iska bedelayna ma jirto midaasiito dalilay xafiiskaada tagina waa iska khalad laakiin wax shaqadeedii u dhimi ama sana ay ka iga reebi ma jirto dad si hoos u fikiraya jiro kala tirsanayo oo baraha bulshada iyo idaacadaha maxalliga iyo isdhaafsanayo oo arrimaha qaar qabiil u bedelayo qaar qoys u bedelayo qaar jeclays u bedelayo ayagu kuwaas waxaad ku dheelayeen maadaama ay yihiin kulli dadka lagu soo doortay horta arrinta waxay ku imaatay laba nin oo ilma adeer aan ahnay baa meelahanaytu dadka musuqmaasuq lagu baaro yaa madax ka ah shaqadana khibradooda may ku heleen wixii hadda ay qabtaan shaqadooda may qabsadeen wax hadda qabiil hadda waxaa la leeyahay samawada baa cali u tashaday oo shaqada ka bixiyey meel samawada intuu isku imaatay cali aan dacweyna ama sana waxaasna waxay la imaatay uun dacwada la dacweey xafiiskan aan fadhiyo hadda xafiiskan aan fadhiyo oo maanta aniga geel jiraan anayo 100 neef oo hadda waxaan qabaa 200 neef oo geel ku hadda iska raacdo waxay dacweyn ma jirto kuwiga wixii abaar iga soo reebtabo ma iska daba socon lahaa marka taas waa khalad dadka maaragtay in qabiilka loo kala saaro shaqadan qabiilnimo lagu tilmaamo labada nin hadii sidaan aan u ogeyn waxa lagu dacweey inta aan maaragtay aan weydinaya maxay ku maatay dacwadeyda way kamid yihiin oo dawladda ayaga ka weyn iyo tuka yarba ayaga way weelisaa laakiin waxa aan leeyahay xaq qabiilnimo iyo qoysnimo ay ku fiirsadeen oo ku dacweeyeen ma jirto ama qoyska ka dhasheen baa ka warhaya oo waxaan garab ugu ma jirto marka taasna dadweynahan iska dhaafaan oo aniga ahmadeyda waan ka soo bixi wax dambi inaan ahayn waan ogahay waxaan lagu dacweeyay wax jira maaha marka dadkaas inay walaal ahaadaan oo anigana waxaan haysatabo sidaan aniga garanay anoo wakiilahayga iyo kaashanaya iyo ilaahay saan uga soo baxno inay sugaan ayagana walaalnimada ay wataan rajinta la ka qabtaan maxkamadaadu inay si nadiif u soo dhamaato wallahi waxaan jiray horta ma jiray moogtay aan dacwadeyda mid aan jirin ay taaniyaan aaminsanahay shalay wakiil baa u soo qoray council of governors oo yiri waxaan arkay dacwada cali lagu dacweeyay ininkana waa idin digaya waxaan lagu dacweeyana wax rasmi ma aha ininkoo dhanna waa lagu dacweyn karaa marka waxaa dan idinku jirta inaad maxkamadda weyn aad tagtiin oo arrintan aad ka doodin marka dadkii oo dhan bay irra gelisay ilaa hadda nin dambi baan leeyahay oo dambi baa lagu yeeli oo kurbad igu jirto ma jirto laakiin hadee dacwo iska dacwo misleedahay rag badan adigu kulomida raadkaaga soo hayaan ayaguna sariirtaas ay xatay saacadu way jiraan sariirtii wali oo hagaajiyay dhufay baan u gaday barkin baan u dhigay mara fiican baan u saaray marka nimanka gabanayaasha sawirkeeda u diray waxaa yiraahday waa soo socotiin meeshii sida aan ugu tagay si ka fiican baan yaan kaga tagay kusoo dhawaadaan ku yiri marka aan kula kaftamo xabsi ninkaan garanaynin habeenka asaga waxa darantay iyo sidoo ay ka xaaladdu soo yahay horta ani maxay ahayd meeshan dadka isku xiro Soomaali wax dhan ma garanay
jeelka jeelka waxaan moodaya soo xili jeel waa Soomaali af Carabi baan u maray marka horta meel fiican maaha ilaa anigoo 20 jiro aad iyo 1982 aan galay sheekada ma socdaata marka hadda beriga waxaan ku ficnaa wiil yarna waan ahaa hadda tanna sariir baa jirta berigaana dhulka la seexanay beerkaygana beer iima weelin meesha gabal igu dhaco unba ciddayda ahayd marka meesha ayada iska beri wax banaan iga jiro reer iyo caruur iyo adduun iyo wax aan xoolada maba sii qabinba wax aabbahay aan tirsanay ma ogi laakiin tan habeenkii ana 5 saac baan seexdaa kanay hadda markii habeenkii lagu berisi 2 saac baan seexday laakiin nafaas baan helaybo telefoonka iska damiyay waa iska seexday ilaa 6 saac aan seexan jiray waqti markii gaartay 8 saac iyo barka waa iga dhamaatay marka horta meel fiican maahan haddii fulay aad tahay oo iska argagixi kartaa ilaa waxaas aan ima dhibaan waxaan wax ka cabsada ama aan ka dadaala intuu dhicin wax markuu dhaco aniga waa waxaan ku seexdaa maanta waagan sidan buu kugu beriyey ama sidan buu gabal kugu dhacay berina qoraxda way meesha ka soo bixi jirtay waa ka soo beri qoraxda way soo bixi wixii ilaahay ku maalinta kugu daraybu marka si fiican dadka reer Gaaris kuwii mucaaradka kugu ahaa iyo kuwii muxaafid kugu ahaaba in badan wax badan baa iska bedelay oo dad badan baa waxay dareensan yihiin maxaa anaga hoggaamkeennii sidan loo yeelayaa suurtagal waxaa kuwa badan oo shalay adiga ku mucaarasana in maanta ay soo galeen ayagoo markaa dhibsanayo arrintan weyn dhibsanayo maxaad ku leedahay oo aad u sheegaysaa horta anaga bini aadmi waan dad laciif baa iska nahnay ilaahay subxaana wa tacaala unbaa korta wixii noo fiican marka anigana siyaasi haddaad tahay cadow badan baa iska qabta marka waxaan ka arkayba meeshan waxaad khoof aad moodi oo khayr iska noqdaa jira ilaahay markuu wax kula dooni si badan buu wax kugu siin karaa marka cadowgaygi maaragtay ama dad uun wax iga tirsanayay ama sana uun niyad xumaa ama sana uun wax iga sheeganayay ama sana ama mucaarad igu ahaa oo aan lahaa mid aad u doontid dadkan waa dad walaal lama kala maarmo oo igu qaadan lahayd ba sanad ba inaan doono yaa ilaahay habeenku keli oon aan jeelo ku beri yaa ilaahay igu soo wada celi anigana waan iscafinay anigana waan u mahad celinayaa sida uun garabka ay igu noqdeen ilaahayna waan u mahad celinayaa sida maaragtay dhibka yar siyaasigay wax isku hagaajiyey ilaahay baan mahadinaya goorman Gaarisa aadina Gaarisa xataa dadweynaha dee waxaan rabay aniga Soomaaliya waxay tiraahdaa dowladda Kenya iyo maroodiba lama hor istaago wiri lama dhaho adigoo ogeyn bay iska kaadirdarayaan oo aad iska dhimani marka dowladdan aan isku hortaago oo aan hadda tuso aniga inaan ka guulaystay oo ma rabin oo anin oday baan hadda ahay dowladdan waan ka soo shaqeeyey fikraddeedana waan garanay laakiin dowladda nafteedaan kala tashado u sheegay haddii dadweynihii inay xoogaa kacsan yihiin inay rabaan inay arkaan inaan wax u sheego dowladdana waan isku afgaranay hadda inaan tago dadweynihin hadda ay soo dhaweeyaan anigana u warramo dadka qaarkoodna dad cadow baan iska qabaa oo leh weli ninka xabsiga ku jira oo 10 sano lama arkayo bal dadka inay arkaan banaanka inaan joogo waa u tagi rabaa hadda dilaayira aad u maasantay waxaad is leedahay waad ku korinaysaa maya waan dad badan oo Kenya joogo banaanka joogo Soomaaliya joogo laba madaxweyne ay la soo hadleen oo ay dhaheen waxaan kula qaban karno ma jirtaa gabana Sonko hata markii aan bond sugayna kursad kala bedelateen meeshii igu imaaday oo wuxuu yiri war bonta wax miya ka dhiman may waad mahadsantaan ku iri marka dadkaas oo dhan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo meel ay joogaan dadkana waxaa weeye markii aad xoogaa dhib ku jirto bini aadam wuxuu jecel yahay in la aqoonsado oo garab la siiyo oo garab loo noqdo marka reer Gaaris Soomaali meel joogto muslimiinta meel joogaan u mahad celinaya marka aad bay u mahadsan yihiin shukran aad baad mahadsantiin daawadayaal meel walba aad joogtaan kaasi wuxuu ahaa gobolka Gaarisa County Mudane Cali Bunow Qorane waraysi khaas oo khuseeyay oo kaliya waxaan la qaadanaynay arrimihii dhaceen iyo xaaladaha isbedelka insha Allah taala balan waxaan oo ah Gaarisa iyo amaan iyo nabadgelyo aad iyo mahadsantiin daawashadiina